wafdigan ka socday komishanka qaranka ee xakamaynta aydiska oo safar shaqo ku soo gaadhay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo ay hogaaminayso agaasimaha daaweynta iyo daryeelka Sahre Maxamed Xuseen ayaa kormeer ku soo maray xarumaha loogu adeego dadka xanuunka HIV aydiska la nool sida cisbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo MCH-yada Barwaaqo iyo Kulmiye halkaas oo ay mas'uuliyiinta goobahaasi joogay ay kaga dhageysteen warbixino la xidhiidha sida loo daryeelo dadka xanuunkaasi la nool iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ee lagama maarmaanka ah. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha komishanka qaranka ee xakamaynta aydiska gobolka Sanaag Nimco Cali Saleebaan oo mas'uuliyiintana gobolka ku soo dhaweysay. Dhammaantiin waxaan ku soo dhaweynayaa gobolka Sanaag komishanka xakamaynta aydiska gobolka Sanaag anigu wakiilka uga ahaa aan ka shaqeynay ilaa iyo maantaba aan hawsheeda wadnay. Waxaan tagnay VCT-ga dhakhtarka weyn isbitaalka, waxaan tagnay xarumaha meelaha dadka lagu baaro dadka xanuunka la nool oo ay VCT-ga tahay. Waxaan kala soo marnay MCH-ka Barwaaqo, waxaan kala soo iminka joognaa MCH-ka Kulmiye oo isaguna ah MCH-yada lagu baaro dadka xanuunka la nool. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Caashe Maxamuud Jaamac oo ka mid ah mas'uuliyiinta MCH-ka Kulmiye iyo madaxa shaqaalaha iyo tababarada ee komishanka qaranka ee xakamaynta aydiska Maxamed Jaamac. madaxdii qaranka ee komishanka guudba iyagoo ka kooban wafdi ballaaran oo dhakhaatiir iyo isugu jira wadi soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxa la wixii uga baahan tihiin xarumaha labada xarumood anagu aanu caawino Barwaaqo iyo Kulmiye waxa laga bixiyaa dawada iyo testiga intaba wayna yaaliin hal wixii reportinahna waxa ka qaata gobolka regionalka ayaa qaata oo loo gudbiyaa. waxaan ku joognaa kormeerkii iyo dabagalkii 3 biloodka ahaa ee komishanka qaranka xakamaynta aydiska halkaan ku marayna wafdi ballaaran ay hogaaminayso agaasimaha daaweynta daryeelka Sahre Maxamed Xuseen hawshaas oo ah inaan dabagalno say shaqadu u socoto shaqaaluhu noo shaqeynayaan ogaanana xaaladda dadka la nool HIV-ga duruufahooga nafaqeyntooda iyo daryeelkooda kalaba hawshaas aanu u soconnaa aanu goboladan u joognaa bari. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha daryeelka iyo daaweynta komishanka xakamaynta aydiska Sahre Maxamed Xuseen oo ka warbixisay ulajeedada safarkoodan. waxaan u soconay inaanu maadaama sanad cusub aynu ku jirno oo bishii saddexaad aynu ku jirno inaanu kormeerkii 3 biloodka ahaa anagoo wafdi ballaaran aanu ku soo marno gobolada oo aanu baahiyaadkii dadkii aan mas'uulka ka ahayn ee xanuunka la noolaa aanu horta u kuurgallo iyo warbixintii 3 biloodkii mar walba la helayay iyadoo amaamiirtaana uu nagu hogaaminayay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah gudoomiyaha komishanka xakamaynta aydiska annagana noo igmaday inaanu xilkaas sida ay ahayd aanu uga soo baxno oo aanu uga shaqeyno annaga dantayada aanu nimi waxa weeyaan inaanu dadkii xanuunka la noolaa awoodda siino haday nafaqooyintoodii tahay haddii daweyntoodii tahay iyo haddii daryeelkii bini'aadanimada ay tahayba inaanu kuurgallo oo warbixinta dabadeedna anagoo sidanaan kula noqono halkii aanu ka soo ambabaxnay isla markaana wax qabadkii aanu fulino insha Allah. وعبد الرزاق حاج أحمد ورباهنت قرنك الصومالي مقالة عارقابو.